السلام عليكم صاحب وكسو دوينيا عليكم السلام ورحمة صاحب سوري وبرا مقع magacayga Bishaar Ali Xasan waa بشار مركله وكسو دوينيا waxaan kugu soo dhaweynaa xogsaha news 4 ay walaalka Xuseen Jeelle oo owner idaadii labadaba ka ah wadankeena 62 sano ayuu xur yahay ilaa haddana Soomaaliland way maqan tahay madaxdii kale Soomaaliyeed wadankii dhalinyarada fursadeedu waa iska yar yihiin marka shacabka iyo madaxda Soomaaliyeed maxaa recommendation oo tala ah aad soo jeedin lahayd thank you saaxiib waa maasan tahay waana soo dhaweynaa su'aalaha ay weydiisay waxaan rajeynayaa inaan dhaho mowduucaas mowduuc qaran weyn waaye mowduuc weyn waaye waana mowduuca la rabo Soomaaliya inay ka soo kabsato oo waxa waaye ay dib uga soo laabato tala ahaan aan waxaan bixin lahaa Soomaaliya waxay dib ugu hagaagi kartaa oo dhismi kartaa marka la helo qof Soomaaliya oo wadani ah oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel marka la helo qof Soomaaliya oo ka damqanaya hooyada Soomaaliyeed wadada ku umulaysa hooyada Soomaaliyeed ee ayada gadaysa wiilka Soomaaliyeed dhimanaya qof wadani oo ka damqanaya markii la helo ayaa la helayaa nabad waxaan nabad helayaa qof ilaalinaya culture-kiisa qof ilaalinaya dadnimadiisa qof ilaalinaya diintiisa markii la helo waxaa la helayaa nabad iyo in dadkii Soomaaliya dib u midowdo oo la ismuwaafaqo la helo marka la helo qof u naxaya Soomaalinimada ee aan fiirinayn interestigiisa aan fiirinayn lacag aan fiirinayn hanti in urursado saa og tahay madax badan aa dalka soo martay madaxdii dalka soo maraysay oo kala duwaneyd inta badan waxa iska cadayd inay ku shaqeynayeen mararka qaar laaluush mararka qaar qabyaalad mararka qaar waxyaabo aan fiicnay soo qof Soomaaliyeed oo ummadda iyo midnimada ku weyn tahay oo interest aan fiirinay markii la helo ayay noqonaysaa marka ay Soomaaliya midoobayso intaas waxaan raacinaa waxay Soomaaliya midnimo helaysaa marka dadka Soomaaliyeed diyaar u noqdaan inay Soomaalinimada difaacaan inay u ololeeyaan inay qofka qaladka wada iska qabtaan inay ayagu midnimo muujiyaan laakiin inta laga aamusan yahay dadka dulmiga wada dadka waxa way wax duminaya dadka musuqa wada Soomaaliya sidaan ay soo ahaanaysaa madaxweynaha kaliya wax ma hagaajin karo hadduu wax qaso waa in la qaban karo gacanta la qaban karo xildhibaan kala dooranaya waa in nidaam sax lagu soo doorto soo waxay u baahan tahay wax badan in la hagaajiyo ka hor inta aan midnimo la helin haddii kale sidaan ayaa la sii ahaanaya caqabada ugu weyn oo jirta waxa waaye qof akademiga wax bartaad arkaysaa wuxuu ka shaqeynaa qabyaalad iyo ismusuqmaasuq iyo isdabarin wuxuu taageeraa qabiilkiisa wuxuu taageeraa qof mucayyana soo kuma weyna qarannimada waxa ku weyn qabiilnimada waxyaabahaas oo dhan markay naga dhamaadaan waxa la heli karaa Soomaaliya wada socota midnimadana waxa ka horeeya dadka in la dhiso marka hore dadku sida ogtahay Soomaaliya markay duntay dalkii kaliya duwina dadkiina way dumeen aqoontii waa duntay qarannimadii way duntay qabkii waa dumay dadnimadii way duntay aragtidii way duntay Soomaalinimadii way duntay waxaan isku faanaynaa wax yar qabiilkayga qori haysta qabiilkayga inta waxba inta laakiin la tartami mayno fiican waxa ogtahay wadamada xilli naga dambeeyo xornimo qaatay adduunka maanta waxay ka yihiin leaders hogaaminaya waxa kamid ah Singapore oo 60 xorriyad qaatay xilli ku dhow waxa kamid ah adduunka bariga ama Asia wadamada hogaaminaya dhaqaale ahaan tiknoolajiyad ahaan marka todoba qodob waxa jirta oo aas u ah dal inuu dhismo كو وحكا أو قضب كوبادا دلك إن لقى هيرجليو أو سيد الدنيا عصر هذا تكنولوجيا دي ساينس كأن أود الله صاروا دتك إن كالجر بيز يو رقم نبضات لقوا أبورو وحبرشة إن أود الله صاروا يدتك كجاناش إن الهذا وحيابها صورنا هذا اسم موافقان هل هيري كراس Soomaali نمو ضد نمو يودن هراء السعودة وأنا نرجلنا برنامج ثاني يدتك سانو كل أريمهان كهلايا social media inta badan madadaalo u badatay iyo kaftan iyo baranki arimaha arimo loo baahan arimaha xaq ah inaan ka hadalno anaga ma ahin dadkii ka hadli lahayn khiyaal iyo kaftan waxaan ahay dad nolosha asaasigeeda u baahan thank you waa soo dhaweynaa barnaamijka noocan su'aal labaad andaan kugu daro waxaa jirta dhalinyaro adiga kulamida asaagaaga wax baratay dhalinyarada isaas sheegtay qabiilkii waxaan markii lagu cunsuriyeeyo lagu barashar gareeyo dhalinyarada qaar waxay isla markiiba automatically maskaxdooda ku fikirayaan in hooyadooda yaanyagadaysa inay ka qaataan lacag ama wax ay xadaan ama ay tahriibaan oo ay dhahan ay wadamo kala miciin badaan marka dhalinyarada fikirkaas qaba ee wadankii yaani in fursad ay leeyahay qaba maxaa u soo jeedinaa daayagana horta hal mid baan rabaa inaan ku sheego qof baahani gom ma ah qof baahani qof ma aha wax walba ka suuroobo qofku haduu baahan yahay garashana ma lahan garaadna ma lahan calooshiisa xukunta qofku haduu baahdo waa qof duruufayso meeshuu caloosh ka buuxsan karo aadaya taas horta waa qodobka koobaad oo keenaya in dadku tahriibaan in dadku meel kale aadaan laakiin qofku haduu dalkiisa ku haysto nacfi haduu ku haysto hanti haduu ku haysto dhaqaale haduu ku haysto nabad waxay noqonaysaa qof inuu dalka la aadin
marar badan caqabadaas waxa keenaysa dadku ma oga waxa ay kala kulmi karaan dalalka kale iyo meelaha kale aadayaan ma oga uncertainty ay la kulmi doonaan laakiin waxa ay raadinayaan nolol laakiin waxa laga yaabaa aad nolol raadinaya inaad noloshii lumiso inaad dhimataa laga yaabaa ma ogid meesha aad nolosha ka raadinaysid waxay la mid tahay gabar masayrto ninkayga ha ifuro kadibna marka nin kala weyday hadhow nin kale oo naag kala qaba guursatay sababtoo ah ma oga meesha u socotay ayadu laakiin meel ka daran ay aadi doontaa aakhir marka qofka bini'aadamka inuu dalkiisa ku kalsoonaado waa muhiim laakiin dhalinyaradu eedda ayaga qaadanaya qayb ka mid ah madaxduna qayb ka mid ah ayaga qaadanaya dhalinyaradu baahidii iyo duruufta ayaa keenaysa inay meelo kale door bidaan laakiin dhalinyarada waxaa laga rabaa adduunyada hormaray dhalinyaradooda hormariyay waxaa laga rabaa dhalinyaradu in ayagu dalkooda horumariyaan u fakaraan aysan dadkan kale wax ka sugin madaxdan kale oo joogta maanta inaysan wax ka sugin qofku dalkiisa inuu u fakaro waayo aragti haddii la helo waxaa la helaa waddadii looga bixi lahaa faqriga shiidka nolol xumada duruufta amni xumada daryeel xumada waxaasoo dhan waddadii looga bixi lahaa ayaa la helayaa dalkeena saa ogtihiin waxaan ka midnaha waddamada adduunka ugu khayraadka badanaan ka midnaha waynu ka baahannaha annagoo ay jiraan waddamo aan khayraad badan lahayn haddana laakiin adduunyada maanta wax badan soo saara annaga waxaan haysannaa baddii webiyadii baan haysannaa beerihii aan haysannaa macdintii aan haysannaa shidaalkii aan haysannaa everything aan haysannaa dad isku nolol aan nahay oo Soomaali aan nahay dad isku diin aan nahay dad isku culture aan nahay nolosha aan haysanno adduunyada wax haysta ma jiro laakiin mararka qaar waxa laga yaabaa wixii nimcada ahaa inay niqmad ama musiibo isu bedelaan nimcadii kama aan faa'iideysan laakiin nimcadii waxaynu u aragnay niqmad iyo musiibo inay tahay so ilaahayna wuxuu yiri qolo iyo dad macnaha ma la badbaadinayo ilaa ayagu marka hore ay badbaado ay sameeyaan ay isbadbaadiyaan ma jirto nabad iyo nimco iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay asagoo gacanta kugu keenay haddaad raadin ilaahay dadaalu ku yiri wax raadiyo ku yiri waa ku garab galaa haddana marka anagu gacanteena nabad iyo nolosha ku raadsan ma imaanayso qof hadiyad loogu keenayna mala wax walba noloshu waa halgan waa struggle marka saasay noqonaysaa dadkuna dalkooda ha aamineen noloshan ayagu ha samaysteen qofkii heli kara yaanyaha iibiyo qofkii heli kara waxa yar ha wareejiyo qof dalkiisa jooga xorriyadu haystaa nolol haystaa laakiin qof dal kale jooga waxaa tahay qof ku nool cabsi qof ku nool walwal qof ku nool amni la'aan qof aan niyadda ka ahayn qof nabada tahay laakiin dalkaaga markaad ku gaajaysan tahay ku ron inta dal kale aad ku gumoobi lahayd lagu xiri lahaa lagu dil lahaa dhalinyaradana taladaasaan siinaya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed marka waxaa leedahay dhalinyarada wadankooda ha aamineen dhalinyarada waxaa leeyahay wadankiina aamina wadankaaga wax ku tahay wadankaaga Soomaali ku tahay wadankaaga la'aantiis waxa tahay ma jiraan qof walbana wadankiisa asaga dhistay 20 jir wadankiisa dhistaa u socotaa 20 jir ata wadankaaga dhiso aad iyo aad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya barnaamijka aad iyo aad